دكتور عافية صديقي دكتورات ku takhasustay neerfaha soo naqal jabisay sanadii 1995 balse laga qafaashay wadankeeda Pakistan 2001 laguna xiray xabsiyo kala duwan kuwaas oo ay ku soo martay iqaabo bini'aadamnimada ka baxsan ugu dambeyn loo wareejiyay xabsi ku yaala Mareykanka iyadoo dusha loo saaray dambi aysan gelin waxa la maxkamadeeyay iyadoo ogaalka ka maqan yahay ama maskaxiyan aan joogin jirdi loo geystay awgeed waxaana lagu xukumay 88 sano waxayna xabsiga ku qaadatay 20 sano waxayna ku jirtaa xabsi infiraadi ah yacni xabsi aysan idna booqan karin marar badan waxa loo geystay kufsi taasoo ay uur ku dhex qaaday xabsiga lagana soo xaaqay ilmaha haddaba xuquuqda dumarka ay reer galbeedka sheegeen wajigan ayay leedahay Allah u gargaaro aafiya iyo intii muslima ee dhiban